munaasabad maamuuskeedu sareeyay ayna ka soo qayb galeen waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween isla markaana lagu soo bandhigayay mid ka mid ah musharaxiinta u taagan kursiga tirsigiisu yahay 229 ee golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu ay tahay gobolada waqooyi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. musharax xildhibaan Zakariya Nuur Cabdullaahi Saajin ayaa maanta beeshiisu soo bandhigeen iyadoo munaasabadii lagu soo bandhigayay ay ka soo qayb galeen dhaqan ka socday dhammaan beelaha Soomaaliyeed iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. dadkii ka hadlay munaasabadda oo kulmisay dadyo aad u fara badan ayaa qiray in musharax xildhibaan Zakariya Nuur Saajin uu yahay mid u qalma booska uu soo istaagay. musharax Zakariya oo maanta uu ku shaacinayo inuu noqdo xildhibaan u taagan 22ka aad iyo aad waxaan rabnaa inuu ku hadlayo afkooda horta waa ku soo dhaweynaynaa soo dhawow Zakariya aan leeyahay waxaan dalkuna u baahan yahay wuxuu u baahan yahay aqoon-yahan u baahan dalka iyo dadkaba sabata bixi kara in aad u shibtaan allabalabeynin oo 101 qofba ay ugu shibtaan baan idin ka codsanaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa walaalkeena oo aqoon-yahanka ah oo khibrado badan leh oo hadda anaga aan noqonin laakiin waxa meesha hadda tolkiisa ama qaraabadiisa ugu soo qortay ba ideeqay kaano ku hadlaaya magaca golaha nabadoonnada Soomaaliyeed haddaan nahay nabadoonnada Soomaaliyeed waxaan ka istaagaynaa garabka midiga waxaan rabnaa hadda beeshishoo sharaxday oo xildhibaannimadiisa gooniyahan inuu ka sugo xildhibaan Soomaaliyeed laakiin beela keenta beeshaas waxaan rabnaa in laga ballan qaadin inaad ugu shubaysaan maanta Zakariya ayaanu meesha saaraynaa isagu maanta meesha xaqu ma leh state hoose nooga hor wixii Allah u alfo wixii hore wax ka talsay maanta cid kale oo habeeyay waxaan leenahay cidii kale isku lugeynaysa rag iyo dumarba isagu yaani isku lugeyn Zakariya maanta meesha leh saaraynaa u garanay haddaan nahay odayaasha sharafta leh ee Ali Saciid magacooda ama reer Xasan Baqiira waxaan u garanay in Zakariya soo baxo Xasan iyo Faarax haddaan nahay heer kale waxa uu shaqaan Zakariya waxaan insha Allah codka siin doonaa Zakariya Nuur Saajin Cabdullaahi aad iyo aad baan dhamaan yaan u bogaadinayaa Zakariya inuu Ilaahay ku guuleeyo ay waa nin dhalinyaro ah oo karti leh oo aqoon leh oo aad iyo aad dadaaladii u dadaalaya inuu dadka iyo dalka iyo dhammaan wax u qabto aqoon-yahanka dadayar Zakariya Nuur Saajin ayaan isugu nimaadnay dhamaanteen madax mijo cuqaal culimaadiin salaadiin dhamaanteen walaalkay waan soo dhaweynaynaa Zakariya halkaas ku socoto kulli guux fara badan baa ka taagan cidda marjaca aan u ama garanaysaa bulshada horta dhaqanka weey kulli dhaqankii waa fadhiyaa meesha hadda haysata kala guurkan aadka u adag waxaan Ilaahay ka rajaynaa inuu Ilaahayna samata bixiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa col iyo dhibaato inuu Ilaahay naga koriyo inuu Ilaahay ummad Soomaaliyeed qulubtooda isu baneeyo in wax wanaagsan iyo heshiis ummadda anfacaysana inuu Ilaahay ka keeno. Dr. Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa iyaduna bogaadisay Zakariya Nuur Saajin oo u taagan kursiga tirsigiisu yahay 229 ee golaha shacabka. waxaan u soo istaagay taageerada Zakariya waa nin dhalinyaro ah oo aad iyo aad u firfircoon waa dadka looga baahan yahay baarlamaanka inay soo galaan. gabagabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay musharax xildhibaan Zakariya Nuur Saajin oo kaga mahadceliyay qeybaha ay ka kooban tahay beeshiisa garashada iyo taageerada ay u muujiyeen. digri kasta ama jaalo kasta haddaad sidatid oo aan aqoon kasta aad leedahay shaqada aad u qabanto helmaysid ilaa iyo matalaadaada shacabka golaha shacabka ku matalaysaa ay kaala hawl gasho oo ay ku keento oo ay ku geyso sidaa darteed baahi waxay yana aad u weyn baahiyaadka aan soo taagay ee ka yimid dhinaca bulshada aan kursiga ku matalayo ay kow ka tahay shaqo la'aanta
baahiyaadkooda gaarka inuu qof kasta oo dhalinyaro ah hanka uu leeyahay ama himiladiisa in uu helo oo aan ugu hiiliyo haddii geed dheer iyo gaad gaaban halkay doonto waxay la korteen. Siyaasadda Soomaaliya ayaa iyadu u muuqanaysa mid gabi dhacleynaysa xilli dowladda Soomaaliya ay shaacisay inuu fashilmay shirkii wadatashiga doorashooyinka ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamulada dalka xilli ay barbar soconayaan munaasabado ay dhiganayaan siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay kursi ka helaan doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya. Zakariya Axmed, TV Shabeelle, Muqdisho.